dugsiga hoose Liban Primary ee ku yaala kaamka Washington qaybta kaam Yemeni ayaa iskool qarka u saaran inay xirma maadaama caruurta dhigata ay u badan yihiin kuwa agooma oo aan bixin karin fiiga lacageed qaybna aysan awoodin xitaa in ay gataan bugaagta iyo qalimaanta wax lagu barto. Iskoolkan ayaa waxa uu ka muuqda duruufo badan kuwaasoo aysan kaabi karin dadka wax loogu baro caruurtooda, taasoo maamulka iyo macallimiinta dhigtay iskoolka ay si tabaruc muddo ku soo wadeen iskoolkani oo ay duruufo adag u soo dhabar adeegeen. Liban oo ah maamulka iskoolka ayaa sheegay in iskoolkani macallimiin badankeed ay isaga tageen balse iyagu u dhabar adeegeen xaaladda oo haatan dib u furkiisa laga joogo muddo 8 bilood ah, waxaana muddadaasi ay ku soo wadeen si dar Ilaaha. ama hadafka meesha u imaanay waxay tahay inaynu tabino macnaha xaaladaha adag aynu maanta ku dhax sugannahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga soo gargaari karo, laakiin aynu ugu baahanahay maanta hadduu Ilaah ku roon yahay iskuulka kani sida u jeedo walaal macaan waxa ka muuqda waa burbur iyo dayacitaan. hadduu Ilaah ku roon yahay ardayda dhigatana inta badan waa organic waxa moodaa in qaarkood aysan awoodinba waalidkoodii inay u iibiyaan bugaagta, qaarkood inaysan awood u lahaynba inay xitaa ay iibsadaan qalimaanta. boqolkiiba 32 waxa ardaydii soo hartay 82 goorta aynu iskuulka furayay waxay isugu jireen gabdho iyo wiilal. hase yeeshee waxaa dhacday in qaarkood ay kaga baxaan qalin ay waayaan oo waalidkoodii u iibin waaya, sababtoo ah hooyo weeye wax halgamayo. hooyana maanta way awoodi weysay inay iibiso hadduu Ilaah ku roon yahay ama viga ay ka bixiso. markaynu viga ka soo noqono hadalkan waa laga dambeyn doonaa anoo ku hadlayo magaca guud ee maamulka macadka ama iskuulka Darul Faiziin LBS Liban Primary. maanta waxa taagan waa xaalad aan ka gabasho lahayn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu soo gargaari karo, laakiin si gaar ah maayirkani cusub hadduu Ilaah ku roon yahay shaqada la wareegay si gaar ah aynu fariin ugu dirino ama aynu ugu amaanayno inuu si gaar ah u eego. sida arkayso baraagta tani waxaan ku shubay biyo oo iscidaad ah oo hadduu Ilaah ku roon yahay oo ardaydii aan u shubay liajli anu ugu dhawaanay Ilaah xaqiisii. laakiin hadda waxaa arkaysaa waxyaabo aan xalin weynay hadday noqon lahayd ama viigii ardaydii aan suurtagal noqon karin, hadday noqon lahayd buwaagtii iyaga ay isku maareyn waayeen inaan siino ama awood noqon weyso. saa darteedii waxaan aad iyo aad mar koowaad iyo mar labaad haddaan ahay maamulka macadka kani anuu ku hadlaya waxaan ku furay Ilaah dartii marka hore meesha tani oo si mutadawacnimo ah oo haddana ay ku furan tahay waqtigii ilaa ay hadartani. haddani waxaan sii jeclahay Ilaah annagoo kaashanayna subxaanahu wa ta'ala cid kale wax halisa ma jirto, laakiin Ilaah dartii inay meesha u sii furnaan doonto ayna marka hore ku furneed, waayo wax walba Ilaah dartii loo qabtaa meel muhiim ay gaaraan iyo meel maqaam leh. shirkadda Daryeel Deegaan waa shirkad ka shaqeysa nadaafadda magaalada Garowe. waxay shirkaddu qaabilsan tahay qaadista qashinka dareeraha iyo adkaaba iyadoo kugu adeegaysa hufnaan iyo howlkarnimo goobtaada ganacsiga, xafiiskaaga ama gurigaaga. waxay shirkaddu ku diyaarisay nooc walba haamaha qashinka lagu kaydiyo iyadoo shirkaddu ka qaadayso fee aan badnayn. haddaba aan wehel ka dhigano shirkadda nadaafadda ee Daryeel Deegaan si looga fogeeyo qashinka. waxaan mar koowaad iyo mar labaad codsanayaa ilmaha arkaysaan ee yatiimiinta ahi ee wax ka dambeeya aanay jirin ee wax daba socda ee hooyo tahay aysan maareyn karin in si gaar ah loo eego maadaama ay taawatay baahiyaha hadda taagan, hadday noqon lahayd xagga biyaha, hadday noqon lahayd xagga agabka waxbarashada in si gaar ah loogu eego. wiile Cismaan Cabdulle oo maamulka xigeenka iskoolkaasi ayaa ka sheekaysay xaaladda guud ee iskoolka. anuu hadlayo codka maamulka xigeenka iyo codka waalidiintaba. iskuulka xilligan ku soo biiray shaqadiisa ama macalinka aan la shaqeynayay waa 12 bisha koowaad sanadkii hadda aan ku guda jirno aan wili dhammaan ilaa hadda baan la shaqeynaya macalinka aan voluntary ahaan ugu shaqeynaynaa. alxamdulillah wax walba waxaan ku sameeyay Ilaahay dartii maadaama caruurta ay yihiin agoomin maanta ay u baahan yihiin wax walba oo maanta lagu tabarucayo ama wax loogu qabto
haddii annaga xoogayaga iyo waxtarkayaga ilaahay dartii ansaan intaan aan kusoo wadnay maanta xaaladaha badanaa waa loo wada jeedaa magaalada xaaladda way xaalad adag aan cidi xambaari karin marka macallimiin baa xataa jirtay nala shaqaynaysay oo daruufihii iyo waxyaalo badan oo macalinka ka shanqariya awgood nooga kala tageen hadeer marka maadaama annaga dad muddo soo socdeen aan ahayn wixiina aan u jeedno inaan yatiimiin ay yihiin aan meel uga dhaqaaqnan aan lahayn xaquuqda caruurta iyo xaquuqinta waalidiinta iyo maamuliyiinta iyo macallimiinta ay leeyihiinba sida iskuulka hore loogu magacaabay inuu yahay iskuul dawli ah oo orfaanig ahaan loo aqoonsan yahay in dawladdii wax ay uga qabato ilaahay dartiis waalidkii haddii aan la kulano aan la sheekeysano waxaa ka muuqata ficilkii waxbarashada ciyaalka inay wax u bartaan ardayga haddii aan la kulano muddaan ardayda ku dhex jirnay aan la kulmo aan arko wuu ku jiraa dareenkii waxbarasho haddana ma ay awoodaan xataa buuggii iyo qalinkii waxay ku gadan lahaayeen biyo ay cabbaan ma haystaan caruurtu waxaa mar walba waxay ku bartaan in la dhiirigeliyo in ay helaan agab ay ku ciyaaraan in ay helaan waxyaalo farxad geliyo markii maadiga looga baxo kale in muddo saacad ama daqiiqada ama nus daqiiqo ay ku helaan ciyaaro waxba markaas uga baxsan casharada maadiga la bixinaya ah ma haystaan iskuulada kale way haystaan marka ciyaarada waxyaalo badan ee xataa ay ku kala yaaceen baa jiro leeyahay iskuulada kale waxaas yaala anaga keena ma haysano waana masaakiin oo yatiimiin kuwa maanta wax loo qaban lahaa ah gudoomiyaha kaamka Yamani Cabdisalaan oo isaguna ka waramaya xaaladda guud ee kaamka iyo waliba iskoolka xaaladihiisa hoose waxaana uu duqa cusub ee caasimadda Garowe ka codsaday in kaamka ay soo booqdo si uu u arko xaaladaha guud ee kaamka iyo waliba iskoolku uu ku sugan yahay 2018 baan marinaya muddo meelahaas 3 sano iyo dheeraad u xulan yahay muddo hadda laga joogo 10 bilood meelaha waxaa noo yimi macalinka Maxamed isagaa furay ardayda iyo arday kale tagtayba meesha hadda ka maqan wuxuuba isagaa muddo hadda gacanta ku soo hayay wuxuu ku waday kartidiisa iyo raganimadiisa annana waxa kuma aanan kordhin karayn waxaan marka codsanaynaa maamulka degmada iyo agaasimaha arrimaha bulshada inay wax ka qabtaan arrinta iskoolkan annagu wax badan xeerinayno aan siday tahay u hadlayn isla waxaan jecelahay inay wax ka qabtaan dadkan arrimahooda iskoolkanna waa iskoolka ugu weyn barakacayaasha laga dhisay wuxuu dhisan yahay hadda muddo 12 sano ah iskoolkii ugu horreeyay weeye iskool kale la dhisay oo hadda shaqaynaya iskoolkana waa la baabiyay duruufo aan garanayn baa loo baabiyay maamulkii hore iyo iskoolkii macallimiintii hore waa iskaga tageen duruuf ay uga tageen iyo wax la'aan hadda aan waxaan ahay kaam kaliya oo ku dhow waa runtii biyaan ku shubay anu haanti biyihii 2 habeen kuma jirin wasiidiis marka waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha cusub si dhaqsaa dadka ugu yimaado waxna ugu qabto haddii aan wax loo qaban waan hadli doonaa maamulka weyn ugu gudbinayna madaxweynaha ilaa madaxweynaha waa gaarsiinayna arrintii xaaladda iskoolka iyo duruufta la taala waxaa jira oo kaleeto hadda annagu kaan baan deganahay muddo 3 sano wax maanan qaadan 3 sano wax maanan qaadan hadda raashimaan la bixiyay magaalada waxa ka socda kaadhadh iyo WFP wax la soo gaaray ma jiraan waxaan arrintaas meesha ka socotana ma garanayno marka gudoonka cusub waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada cusub inuu arrimahaas fiiriyo noo yimaado na soo gaaro iskoolkan Liban Primary ee Kaam Yamani ku yaala ayaa muddo ka hor xirmay balse hadda muddo 8 bilood laga joogo ayaa dib loo furay maadaama ay macallimiinta qayb ay go'aansadeen in si tabaruc ay ku wadaan iskoolkaasi Maxamed Saciid Yuusuf STN Garowe.